dekadda magaalada Berbera waxay sanadkii la soo dhaafay ka mid ahayd meelaha mandaqada ugu hadalhaynta badan kadib markii ay heshiis maalgelineed wada saxiixdeen Somaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World. heshiiskaasi ayaa keenay in dekadda Berbera lagu wareejiyo shirkadda DP World taasoo sanadkii la soo dhaafay gacanta ku haysay. heshiiskaasi ayaa dhigayay in $442 milyan oo dollar lagu maalgeliyo ballaadhinta dekadda iyo sidoo kale jidka isku xidha Berbera iyo Ethiopia. walow ay jiraan dhaliilo heshiiskan la xidhiidha oo ka imanayay mucaaradka Somaliland, haddana sanad kadib waxaa magaalada Berbera toddobaadkan lagu qabtay munaasabad lagu shaaciyay hirgelinta wejiga koobaad ee heshiiska maalgashi kaasoo ah ballaadhinta dekadda Berbera. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici iyo mas'uuliyiinta DP World qaarkood ayaa dhagax dhigay. geesta kale magaalada Hargeysa ayaa iyana lagu qabtay munaasabad kale oo ay Somaliland, DP World iyo shirkadda ballaadhinta dekadda ku guuleysatay sida la sheegay ay heshiiska hirgelinta ku kala saxiixdeen. munaasabadaasi oo madaxweyne Biixi iyo gudoomiyaha shirkadda DP World Suldaan Axmed bin Suleymaan ay ka hadleen waxay tilmaameen muhiimadda heshiiskan. munaasabadaasi kadib ayaa wada jir warbaahin ay VOA ka mid tahay ula hadleen madaxweyne Biixi iyo gudoomiyaha DP World, waxaana inta badan ka jawaabeen weydiimo la xidhiidha mashruucan oo ay sheegeen inay hirgelintiisa ka go'an tahay. marka laga imaado heshiiskan la xidhiidha Berbera, muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray khilaaf u dhexeeyay Djibouti iyo shirkadda DP World kaasoo ku saabsanaa mashruucii dekadda Dooraale oo ay dowladda Djibouti la wareegtay. waxaa la weydiiyey gudoomiyaha DP World halka uu ku dambeeyey arrinkaasi. Djibouti waxay ku jirtaa maxkamad, waxaana maxkamadda ka socda doodo badan. waxaananu arrintaasi ka dhur sugaynaa nidaamka sharci, waxaananu qaadi doonaa tallaabo kasta oon ku ilaalinayno xuquuqda dadka saamileyda ah. joojina mayna ilaa aanu ka sugayno in DP World sharciyan ay hesho magdhow. iminka kama hadlayno inaan dib ugu noqonayno, sababtoo ah waxay samayn karayeen way sameeyeen, mana maalgelin doono dalkaasi. Djibouti xadka ayay ka gudubtay, waxaanay maanta taasi ka dhigtay Djibouti oo keliya maaha ee Afrika meel khatar ah, taasoo macnaheedu tahay in cid kasta oo doonto inay maalgashato ama dekadda dhisto oo bangiyada deyn weydiista waxay bangiyadu weydiin doonaan dulsaar aad u badan, sababtoo ah suurtagalnimada inay dowladdu la wareegto maanta ayay dhab noqotay. weligay tan oo kale maan arag. geesta kale heshiiskaasi waxaa dareeno kala duwan ka soo celiyey dalal kuwa mandaqada ah. dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ahayd oo ku tilmaantay sharci darro. madaxweyne Biixi isna la weydiiyey su-aashaasi ayaa ku jawaabay. cid barashan ama culays lagu cadaadi karta dalka yaga waxaanu ka qaban siyaasiyan, ganacsi ahaan, diblomaatiga ma jirto. umalayn maayo in ku jirto dowlad ay naga dhaxayso colaad aan isku cusub dalka gudihiisa. haddaad daaran tahay Soomaaliya oo dhowr jeer soo faragelisay waa baraf, waa hadal miyaha loo dhigay, saameyn naguma leh hadalkooda. afku maa la iska xumeeyey dee soo socdana waxay geliyeen colaad iyo cadaawad la isugu qaado. markaa wuu difaacan yahayo dalka nabadgelyo isku xidhay, cidna looga baqmaayo dhinaca DP World waa ceed saas kula soo baxdaa, Ethiopia laga soo baxdaa. markaa qof waliba mas-uuliyadda dalkiisa ayuu mas-uuliyad ay dhaqaale tahay, day sharciga weeshiye tahay, iskuultiga meesha tahay, haddana uu boqolkiiba boqol la sugnaa. heshiiskan ayaa qayb ka noqday arrimaha hirdanka ganacsiga ee ka taagan Afrika, gaar ahaan dalalka bariga Afrika. waxaanu sheegay gudoomiyaha DP World inay diyaariyeen goobo ku yaala magaalooyinka Diridhabe ee Ethiopia iyo Kigali ee Rwanda oo agabka dekadda Berbera laga soo dejiyay gaarsiin doona dalal taxan ilaa bartamaha Afrika. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.